sababo badan oo isbiirsaday awgeed ayuu dahabka iyo dhammaan macaadiinta ay shalay hoos u dhac aad u xooggan u sameeyeen. midda ugu horeysa ayaa ah in madaxweyne Donald Trump uu bedelay ninkii bangiga dhexe ee Mareykanka Fedka hogaamin jiray Jerome Powell laguna bedelay Kevin Warship nin la yiraahdo. haddaba bangiga dhexe ee Mareykanka waa bangiga ugu awoodda badan dunida maamulana lacagta dollarka. taas waa midda labaad waxa weeyaan dhanka Venezuela. haddii aad xasuusatiin mar aan Venezuela ka sameeyay Donald Trump markii uu faragelinta ku sameynayay waxaan dhahay hadaladan. haddaba meeshan isbedel weyn ayaa ka imaanaya. Venezuela waa wadanka ugu qanisan dhanka shidaalka ee dunida. waxaa lagu qiyaasaa shidaalka wadankaas ku duugan 17 trilyan oo dollar. haddaba Mareykanka haddii uu awood u yeesho inuu dalkaas maamulo wax weyn ayaa iska bedelaya. lacagta dollarka way soo awoodeysan doontaa, qiimaha dahabkana dhulka ayuu galayaa. laakiinse waa sidaas haddii Donald Trump uu ku guuleysto in Venezuela uu maamulo dowladdaas dollarka waa uu soo xoogeysanaya ayaan dhahay. shalayna waxaa dhacday in baarlamaanka dalka Venezuela ay ansixiyeen in shirkadaha Mareykanka ee private loo leeyahay ay maal gashan karaan maamulayana kheyraadka dalka Venezuela. midda saddexaad ayaa ah in duulaankii uu laga cabsi qabay Mareykanka inuu ku qaado dalka Iran uu u muuqdo in uusan dhici doonin. Mareykanka iyo Iranna ay wada hadal arintooda ku dhameysan doonaan maadaama Iran ay muujisay in ay isdifaaci karto, Mareykankana uu u baqay maraakiibtiisa dagaalka qaasatan kuwa diyaaradaha qaado in Iran ay waxyeelo gaarsiin karto iyo beesiska uu ku leeyahay. sidaas daraadeed dagaalka Iran waqti xaadirkan wuxuu u muuqdaa mid uu Mareykanka uu ka baaqsanayo. haddaba dahabka hoos u dhacaas saas daraadeed ayuu u sameeyey. for long run aragtida fog weli dahabka inuu qaliyoobayo shaki kuma jiro, laakiinse short time-ka ama waqtiyadan ilaa bishan iyo bisha ku xigto waxa macquul ah dahabka in uu weli hoos u dhac sii sameyn doono. last update-ka. thank you.